أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. halkan waxaan jeclahay inaan ku fasiro risaalo yar oo laga qoray al-aqeeda al-ihtisaamiyya jama'atu al-ihtisaam aqeedadeeda. jama'atu al-ihtisaam sida uu nahay waxay kamid tahay xarakaadka macnaha Soomaaliya ka jira. marka hore Itixaad al-Islaami la oran jiray dagaal badanna waa galeen waxayna oran jireen waa jihaadinay oo macnaha wadankii waxa lagu xukumayaa kitaabka Ilaahay kitaab aan ahayn waa la dagaalamayna iyagoo marka bayaan saxiix aan ka haysan dadka kitaabka Ilaahay diidan oo kitaabka isku xukumaya iyagoo aan meel dhigin baad iyagu maxay yihiin oo diintu maxay ka qabtaan nin kitaab Ilaahay aan ogoleyn yaa la dagaalamo oo dagaal ka xiga diinta Ilaahay maxay ka tiri oo maxaa sharciga Ilaahay muxuu ka yiri iyagoo aan taa inta fiiriyaan meel dhigin waxay bilaabeen inay la dagaalamaan oo yiraahdaan waa ku jihaadina kitaab Ilaahay sar marinayna oo qofkii naga dhintay waa shahiid. dagaaladii markii ay muddo wadeen oo dagaaladii wax tiri waayeen waxa weeye dhinac kale u bedeleen oo dadkii la heshiiyeen waa la heshiiyeen oo waxay noqdeen ugaasiye noqdeen oo dadkii dhex galeen oo magacii horena waa iska tireen oo magaca al-ihtisaam leeyahay la bixin. marka laakiin wali waa un dad dhaqaaqaya oo taasiir leh oo hadlayo diinta Ilaahay wax ka sheegaya way. marka aqeedada macnaha in la cadeeyo ahmiyada ku jirta waxa weeye aqeedada waxa ku jira wax badan oo khaldan bal waxa weeye kitaabka ay qoreen oo aqeedada ay ku cadeeyeen qofkii si fiican u fiiriya wuxuu ogaanayaa inuu yahay kitaab u adeegaya cadaalada islaamka aanu adeegaynin dad muslimiin oo muuminiin oo adeegayn weeye. sagaan ka arki doonaa waxyaabaha ku soo arooray tanaaqudaadka ku jira aan arki doonaa. hadafka marka loo qoray waxa weeye qofka muslimka inuu ogaado afkaarta macnaha dadku ay sidaan oo socota casrigan oo la soo sheegayo oo la kala qaadanayo inuu la socdo wixii khaldan si uu wixii khaldan ka uga qabto uga naseexeeyo wixii khaldan oo u bayaamiyo wixii lunsan oo arko isaguna uusan ugu sirmin. hadafka loo cadeynayo waa sida waxa markay khaldan yihiin dadka waa la tusaa oo xaqa waxa weeye waxyaabaha xaqa aad u muujiyo waxa kamid ah in waxa kan lidkiisina ina ogaatid weeye ma oo haddaad iimaan ogaatid kufrina waa ina ogaatid wuxuu yahay waa ina ogaatid oo ashyaada waxa la yiri lidkeeda bay ku cadaadaan. sababta marka magaceeda waxa weeye al-aqeeda al-ihtisaamiyya aqeedada al-ihtisaamka منهج جماعة الاعتصام كتاب كيركا وليراه منهج جماعة الاعتصام هو كتيب صغير كتاب يروي فيه خلاصة اعتقادات جماعة الاعتصام وحا كجرا معناها خلاصة دي النحركي عقيدة دي جماعة ولا صوكوبي وي النحركي دي وي والمنهج الديني الذي ارتضوه لأنفسهم هي منهج الديني ونفتض إرهالك والنقدين ويدون أيان إنه يكون صعدان ضدك ويران. ومن درسه قفك درسه وصفي عنه أخرياء ودراسيه وفيريه يجده حيلا يا كتاب كان يقوم إنه كتاغيه على قاعدتين لبا قاعدو بكتاغيه هي سوى دنبا. الأولى من دور يسوحوه قاعدة الاعتراف بالحق قاعدة الاعتراف بالحق حق إن الاعترافه عن الإنكرين waxa way qofka hadda uu yiraahdo yaani shirkigu waa wax fiican inna ka dhageysanayso shirkigu waa xun yahay Ilaahay baa sheegay oo intaas oo aayad qofka hor iimaanaysa oo shirkiga xumaantiisa sheegaysa marka shirkigu waa xun yahay baa la oranayaa qaadatu al-i'tiraaf bil haqq waa in laga baxo waa in laga islaamo baa la oranayaa wa taqriir sihhat al-mabda iyo in la cadeeyo mabda inuu saxiix yahay لكسب ثقة طلاب الحق سيدي وحي حقدونها أيضا أي حسنان. يعني قفك هذا دينة إلهي كسو برطي شركي وينو عريسي هاي ودينة الله يبحي وأن لودن بدافع قفك إمارتي كل انتهى وشنة حاران وكتها إمارتي نارتا وكوارا يقفك سو برطي markay u waramaan qodaan oo yiraahdaan shirki waa sida uu sheegtay waa sida Iiraan wuxuu moodayaa xaqi sidoo ahaa inay u qaateen waxa la kasbanayaa kalsoonidiisa
لكن ما حد بيهال قاعدة لبعض وكتاب كتابين وحوي سلب معناه معنيه إن لقى سيبه شيء الاعترافي وأساس ليري وورم ليري وأوحى لقى بحين هيا ولقى سيبه هيا معنيه سي ومعنيه لو قصد هيا ودنبا لبابين هيا بالتحريف تحريف بلوبا بين هيا يقلقلوعين وتعضيل إياها والقبسين وحول قويبا لقى إياها وعن شقين كريبا لقى إياها وإماتته إن لقد له ويسود الميت لقى ديبه في التفسير مركز لفسير هيانا قابل الله فسره لقد له حقا وحكي جيران وحقا وحكي جيران وحقا وحكي جيران سيده لو ليهي با شركي la rabay in laga baxo oo wixii ku jiraan laga carado laga go'o wuxuu iska noqonayaa wax iska caadi ah sida dambiyada yar yar kamid oo kale wuu iska noqonayaa marka qaacidada labaad waa maxay xaqi la i'tiraafay taxriif la geliyo oo tacdiil la geliyo oo tafsiirka lagu dilo oo la abuuro waqtilaaq mabda in la abuuro yunaaqiduhu ولدي كويسي وبابيني ليحيط به الغموض وسي معناه مجدي وهريره يسو دنبا من كل جانب دينا walba wax mugdi ku jiro noqdaan go'aan ba laga qaadan karin ila la yiraahdo baab al-aqeeda lama gali karaba waa khatar wax laga hadli karo ma aha ila la yiraahdo illa markii wax la qararo oo la yiraahdo waxaan waa sidaan haddana tan waa jirtaa waa barbartaala oo tana jirta la oranay ويكون وحنا نقولها يا عديم تأثير مد مارت أراد لهين رادكيس إبرياي لا لقد جايا قاعدة مركز الاعترافي أو حقها هي ولا شيء ومبدأ العدية ينو صحيح جاي ولو كسبنا يضط حقدونك وحال ضبط جايا إن معنيسي لبابيه لتحريفيه تفسير في الوجود له مبدأ كلا لا أبوره وكسور كذا سي مجدي صودا بودح جله وواحد راد لهين النقطة فلا يصبح مركا ما هو بونانا لأن يكون إنه النقطة أساسا من أساس لمنهج حياة طريق نولاد من عنكر وواحد سيسب عن عضين سيد طريق نولاد من غني ما بعد طبعا لا بقف والبؤر انت كان الله واسكو خلافه يعني كان مركو ساسي كان سان ورنا حلو تلقى له نوش كقيب جلين با نوش مركا تاثير ku yeelan marka ma noqonayo asaasan limanhaj hayaatin wa bayaan noqon mayo litamyiz loo kala sooco bayna ahli iimaan ehelka iimaanka wa ahli kufri loo kala sooco noqon mayo kitaab korta intaas buu ku taagan yahay hadii la duuduubo jumlatan markii aan tafaasiisha galnaa arki doontaan waxa la sheegayo in run tahay إن واضعي العقيدة الاعتصامية تذكر كتاب كان العقيدة الاعتصامية لوجه الله ويقول بحيان منهج جماعة الاعتصام يقول بحيان طريقة جماعة الاعتصام قد أقاموها وحيكون يستاجيين على هاتين القاعدتين لماذا قاعدوك تاني فصار وحو النقضي لكل مسألة والبوحة والنقضي أو يالتي وجهاني لوجه متضاداني سكور إيمانية متناسخان اسنا صحية واجرتا من جرتو بين غنسا واجرتا من جرتو شركة من الله والله بحا لو أنا بحا بربرت الله ديمقراطية هو قال لمنا ما هذا بربرت الله حركة اللي بتجينا هي هو قال لمنا ما أنا بربرت الله سياسة معنا قاعدين والبوحي يالتي لما وجي أو متضادان أو اللي يسقاه متناسخان اسم السخية ومدي هراء وحبابينا يمد الله يأتون وحي كوكينا يالمرك هراء الله إيمانا يام بالاعتراف أغنسي والإقرار يقردي أو بالحق حقي لقيرها هي لا إيمانا يالمرك والرئيس حقي بالقيرها هي والاعتراف هي وحسواسلة والغرنية وعدم رده ينا للردين بلا إيمانيا بصراحة شعب لو ردين ماي عند البيان النظري لمبادئ الدين مركب بيان كالنظري قال وجرو أو مبادئ الدين العدينية أو محا أصول إيمان محا شرك محا إسلام كبرية محا إسلام كلوسو قلا مركب لا هذا حقي بالعدينية سعدنا لو ردين مايو مركب بيان كالنظري قال وجرو أو لمبادئ الدين وأوليات العقيدة عقيدة بلوغة يعني ما مركب لا هذا أصول الإيمان هي مركب لا هذا إيوه
أركان الإيمان يمرك لقى هذا أركان الإسلام حقي سوءها مكر له شيء ثم كتب لكن بحكوا حاجة تعقيبه بالتعطيل وحل وعربنا يا ولا ضمني يا وح معنيه زولنا وعضيل يا هول قبسينا وشركة مرك هنا وسيد عين وعضينا يدقف كله فسره شركه ووح ليقان ووح يوحى وعبادة غير الله يوي الله غير كل عابده وسيلا بدن لو عابده أما خير يا مارت يعني شرب لقمة لأيه لقركم أيه ومركا لو دلوا سو مارت يعني شركة سلوى من قالوا خير كسر الله هلا لسود الليه ولو سجوده وحلو قالوا وحلو ندرو أما وحكلوا كوي معنا يا يدو لو دلوا أوامرتي إلى أوامرتي كور إيمانسي والمركا لو قال سمسير ما يستر الله قاطه وحكوا يلا ولا قاطه معنا الله أورنا الله بحرمي يا الله بحلاليه ماشي على كيني شركة ومركا واحد مركي العضين يواسدها markaa hadana waxa barbar taalo ilaahay inoo sheegay wuxuu yiri shirkiga oo ku dhinta janno waa ka xaraan narna oo ku waaraya wuxuu yiri u dambi dhaaf maayo saasa ilaahay inoo ku cadeeyay subhanahu wa ta'ala bal nabiyada ilaahay hadii sameeyaan bal ilaahay shirkta la yaxwadana amalka baaba ayaa la yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam qofku marka quraanka marka saa loogu cadeeyo wuxuu fahmayaa shirkigu wax la yaqaan horta inuu yahay qofka ku dhaqmaaya iyo qofka islaamka ku dhaqmaaya iimaankana inay kala muuqanayaan oo kala duwan yihiin baa laga fahmaya quraanka haddana sida loola dhaqmaayo oo muaamalada loola dhaqmaayana quraanka baa cadeynayo mushrikiintu waa sida ka yeelan ka baraaqaata leey dacwada ugu yeeran leey la jihaada leey heer badan baa la marinaya qofka muslimka si mushrikiinta uga qalib noqdo وادر لي يقانو لا dirirayo oo waxa lagu gartayna waa aqeedadooda iyo amalkoodii way shirkiga ahaa way arinta marka waa bayaan hadii kitaabku sidoo yahay iyo qofka aan la kala dhaxgelin oo la cadeeyo qofka si run ah shirkiga waa garanaya mushrikiintina waa garanaya laakiin gaalada waxay doonayaan marnaba inaan islaamku u sacadaan oo inuu isku murgo oo isku maartay yani talbiis la gariyo doonayaan markaa waxay abuureen marka afkaar badan oo marka arimihii diintu ay sheegtaba lagu wareejinayo lagu hareereynayo mugdi gelinayo marka qofkii marka hada quraanka inta ka soo barto shuyuukhdan hadii 10 bilaabaan waxay oranayaan shirkiga marka qofku ku aragtay shirkiga gaalnimo ah laakiin qofku waa muslim waxay oranayaan ma gaalaysiinaysid ilaa bacda iqaamati alhujja soo ilaahay u shirgeeyayo oo wixii ilaahay sheegay sifadii lama gaalaysiin karo ilaa iqaamati alhujja